runtii waxaan shaki ku jirin qof reer galmudug ah ama Soomaali oo wax garta aad iyo aad bay u dhibaysaa galmudug inay ka harto garbaheeda kale inay ka harto mana aha waxa boomba ma ahan taa cid ku fakaraysa ma jirto waxaan leenahay bulshada caasimadda bahda reer galmudug oo halkan fadhisa dhamaantood inta maqana matalaya waxay garab taagan yihiin oo gacan siinayaan go'aamada ka soo baxay guddiga maamul u sameynta galmudug maamulka caasimaddu waa anaga siyaasad kale waxba nagama quseeyaan waxaan diyaar u nahay inaan gogol u noqono bahda galmudug soo dhaweyno cid kasta oo imaanaysa heer qaran musharax midkii ah nabadoonnada iyo dhaqanka loo yeeray si ay u dhisaan galmudug kulligiin waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada khiyaartii iga horreeyay sidii u sheegeen waxaan leenahay galmudug waxaan u rajaynaynaa inay ka dhisanto dawlad garab istaagta midda qaranka u go'aamisa reer galmudug waxa ay leeyihiin garata waxa ayaga lagu leeyahay runtii caasimadda dad badan baa waxa weeyaan in badan joogay waxaan leenahay reer galmudug oo caasimadda markaad timaadaan cidna idinkama laha martiyaanaha isku dhihinina nin walba gurigiisa u joogaa maamulka waxaad u leedihiin heer isteed heer gobol iyo heer degmo marka intaas adoo u leh inaad tiraa martiyan ka ahay taa wax la aqbali kara ma ahan habiyada kugu horeeyana waa lagu gacan qabaan leenahay insha Allah madaxda qaranka qodobadii laga sugayay maadaama howlihii qaranka u yaalaan inay qeexaan guddigii matalayay oo soo magacaabeen go'aamadii galmudug lagu dhisi lahaay waan ayideynaa waana garab taaganahay runtii khayrul kalaami ma qalla wadalla baa layiri xafladda saad uga soo qayb gasheen aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku bogaadinayaa bulshada reer galmudug gaar ahaan inta caasimadda ku sugan in ay gacan ku siiyaan laamaha amniga sidii amniga loo xaqiijin lahaay haddaanan annagu kala shaqayn ayaga keligood ma qaban karaan haddaanan garab istaaginna cadowgu meeluu ka soo gala ma weynayo marka ha lagu gacan siiyo guddigu ilaa uu maamul noo dhisana aan garab taagnaanno annaguna waxaan diyaar u nahay inaan galmudug oo dhan maadaama caasimaddii aan matalno oon duqii caasimadda aan ahay inaan gogol u noqonno gacan furanna aan ku soo dhowayno